xildhibaan Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalweynaha Mareykanka oo dhawaanaha ku sugnayd Puntland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka degmada Qardho ee gobolka Karkar ee Puntland soo dhaweyntaas oo ay ka qayb qaateen maamulka degmada kan gobolka ururada haweenka siyaasiyiin dhalinyaro iyo dadweyne tirada haweenka reer Karkar ayaa arki karaysa oo lulaya عليما قوين إسلامركانا كل بيسان در أي كحديه نستعمها بنتلان يكن صوماليا حلبان الهان وسافر كذا نكوه لي لما نهد أحمد وزير كمالية بنتلان عبد الله الشيخ وزير الدولة حرير كقبلة بنتلان قدومية قرب جوكت بنتلان وحين السلام كالقعلتو يلا لحقاديدت كي سود ويو ايديغان هاكا سوجد إسلامركانا فرحاد لقا دريمي وايتاني وقد لقانتا يميد إيدا كوين waxayna meel fagaara kula hadashay dadkii soo dhaweeyay oo uga mahad celisay sida diiran ee loo soo dhaweeyay walaalahaygi aan jeclaa sharaf baa idinka muuqato qiimaha idinka muuqdo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan idin imaado oo idin soo salaameeyo oo anigoo socdo aan idin hambaliyeeyo idin mahad celiyo aniga dhulkeygii aan joogaa marka aad aan ugu faraxsanahay in dadkeyga ay garab istaagsan yihiin aad iyo aad aan ugu mahadsantihiin aan ku faraxsanahay inaan waqti idin la qaato oo maanta aan idin la joogo waa mahadsantihiin intii ay ku sugnayd degmada Qardho waxa ay booqatay goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin cusbitaalka weyn ee Boosaaso iyo xarunta agoomaha oo ay wax ku bartaan iyadoo markii dambana kulan la qaadatay maamulka degmada kan gobolka bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale taasoo lagu muujinayo taageerada weyn ee loo hayo xildhibaan Ilhaan Cumar waddanka gooya saan rajaynayna xilligiisa kale oo halkan soo nimi waxay ahayd maalintii lagu taageerayay in Ilaahay xilka ku guuleeyo Ilhaan ayay ahayd insha Allah Ilaahay waa ku guuleeyay waxaan leenahay Ilhaan iyo saygeeda soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkiini dadkiini dalkiini seedii ku soo dhawow aduguna mar labaad iyo mar saddexaad dalkaaga iyo dadkaagi dhammaantiin aad iyo aad aan kaga mahad celinayna dagaalkan aan soo galnay maalin kasta waa in kala socon jirnay waxa ahayd in iftiinkeena niyadda noo dhisay jirteen wasiirka maaliyadda Puntland oo kulankaas soo xiray Cabdullaahi Sheekh ayaa isaguna xusay soo wareejino halka keeno oo ay dalbatay inay soo aragto Qardho waxay tiri waa meeshii taageertay oo aanu la soconay har iyo habeen inta aanu marro nala maraayay Ahmed Sham on Cable TV Garowe.